هذا بوفيس درنتي هذا بوغ درنتو هذا سيحن ويدي هذا عرضو كابضتو warwarka iyo walbahaarkaas waa laba nooc marka horeba waxa keena wax biological ah wuxuu ka iman karaa jidhkiisa khalal u shaqeeyay ama heredity dhaxaltooyo hore ha noqdo oo family iyo caa'iladu ay lahayd kanaynu inagu ka warramaynaa kamaha waxaynu ka warramaynaa waa wixii ka yimi asbaab khaarijiya asbaabta khaarijiga ay ka timi markaa waxa weeyaan qofka mashkilada ku dhacday qofka oo warwar galay qofka oo musiibaynta ku timi musiibadii xijin kari waayay xanuun bay dhashaa marka dambe dunida xanuunkani wuxuu maanta ka mid yahay xanuunada ugu tirada badan leh xanuunadan isla hadalka iyo warwarka ahi waxay ka mid yihiin xanuunada dunida ugu tirada badan leh walidaalika waxa la tilmaamaa Yurub oo kale afartii qof baa qaba bay yiraahdaan afartii qof ee kasta Yurubiyana mid baa liqa daawooyinkaasi loo liqo xanuunada nafsiga dadku haddaanay xanuunka wada qabin ama baahidan itmiinaankii baa la waayay weeyaan dadku xasiloonidii iyo deganaanshihii qalbiga ahaa lumay markaasaa warwariyo walbahaar adduunyo israaciskan baana intiisa badan keenay maxaa cilaaja baynu leenahay marka maxaa dawaa ugu horreyn waxaynu leenahay kitaabka qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wiqaayo iyo cilaajba uu ku soo arooray wax lagaga dhowrsado warwarka iyo walbahaarkaasi uu ku soo arooray oo marka horeba dafciya oo qofka laazima aanu ku dhacaynin insha allahu tacaala kaa khaarijiga aynu ka warramayno waxaa kaloo ku soo arooray wax la iskaga daweeyo oo qur'aan iyo xadiid bale dhowr qodob baynu markaa tilmaamaynaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa caqiidada islaamiga qofka muslimkii uu ka warwariyo walbahaar yaryay qofka aan muslimka ahayn caalamul islaamina wuu ka yaryay isagoo ka mashkilad badan haddana wuu ka xanuun yaryay marka loo eego xanuunada warwarka iyo walbahaarka ku saabsan iyadoo ay ahayd inuu maadaama uu mashaakilka yaalla ka tiro badan yahay uu ka tiro bato ayuu haddana ka yaryay baynu leenahay sababtu waa maxay sababta koowaad waxaanu leenahay waa masalatu alqadaa'i walqadar qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay oo caqiidadiisa ka mid ah alqadaa' walqadar wuxuu raalli ku yahay ilaahay qadihiisa wixii uu qoray wixii dhaca wuxuu garanayaa wax rabbi qoray inay ahayd qofka mu'minka ah caruur ka dhimatay xaas ka dhintay shaqo uu waayay makaano uu waayay warwarkiyo walbahaarka ay ku abuurtaa xanuun kuma noqdo in western society wadannada reer galbeedka waxaa caanka ah recessioniskan dhaqaale markay dhintaan intaas oo dad aba isdila waayo boorsadii baa khasaartay oo lacagta gashaday dabeetana waxa la odhanayaa maanta waxaa isdilay intaasoo dad ah sababtu waa maxay boorsadii lacagta khasaartay meelahan suuqyada lacagta markaba soo raraabaa degay inay waashaan oo dhakhtarka la dhigo iyo inay isdilaan labada midubaa bay noqotaa inuu kaws kaga siiyo oo intixaar uu sameeyo suicide iyo in waali dhakhtarka lala dhigo ama qofka muslimka ah inkastoo ay xanuun ku beerayso hanti uu waayay ama qof uu jeclaayo ka geeriyooday ama kan laakiin durbadiiba wuxuu rumaystaa in rabbi qadaray dabeetana wax weyn kuma noqoto alqadaa walqadar iimaanka la rumeeyaa markaa wax badan buu ka taraa shayga labaad aynu leenahay wax badan buu ka taraa waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir oo qofka mu'minka ah wuxuu rumaysan yahay wax kastoo dhibo oo la timaada adduunkuba inuu wax yar yahay oo macno badan la lahay wax qiimo leh markaad weydaabaa dee la naxaa laakiin adduunka gebigiiba nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam low kaanat addunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ما سقى كافرا منها شربة ماء حديث إمام الترمذي ورني الشيخ الألباني نحس صحيح كنت المامية أدون لما انتبه إلهي أكتي هدو قرب كان يعكل لقيا كان يعلق غيبية
kaneecana walba wax faa'iido lahayn ayaa haddana la qaybqaybiyo waxa la tilmaamay garabkeed adduun dhammaantii baa la yidhi hadduu kaneeco garabkeed ilaahay agtii ka joogo qiimayntaa leeg hadduu ka leeyahay gaal koobiyaa kama siiyeen baa la yidhi gaal lagama waraabiyeen idan qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay adduunkuba qiimo loo warwaro wax garab kaneeco ka yar dee looma waasho saa daraaddeed qofka mu'minkahi wuxuu rumaysan yahay aakhiro waxaa ka mida waxyaabaha buufiska reeba ducada badan iyo tasbiixda badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka ku ducaysta اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إلهي سبحانه وتعالى وكفر فرح وأنا الدعاء دي النبي عليه الصلاة والسلام ولبتن waxay dhahdaan waa duca wiqaa'iya qofka ku ducaysta kuma badhaco waxa kamid ah culimadu yiraahdaan inaad xasuusato adduunka aad ku nooshay dib kasto ku haysata mid ka dhib badan inuu jiro qoladani cilaajka nafsiga samaysa culimada psychology-guna waxay dhahdaan waa cognitive bay dhahdaan therapy waa qofka in la qanciyo ama se inaad rumaysato aswa ihtimaalaat qoladan dadka dawaysa psychiatry iyo psychology-gu dadkooda buka intay isugu yeedhaan meel ayuu dhakhtarku dhex fadhiistaa dabeetana mid walba waxa la dhahaa dhibtii iyo mushkiladii ku qabsatay ka waran markay isaga waramaan qaar bay arkaan dabeetana qof baa wuxuu isdhahaa warin adiga waxba kuguma dhicin kuwan baa balaayo qabsatay midba markuu mid kale balaayo ka sii weyn ka waramo waa طريقة ay u cilaajiyaan dadka mardaaga ee iktiaabku depressionku hayeen loo keeno waxyaaba wax lagu daweeyo waxa kamid ah xusnu dhan qofka warwarkiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba uu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baa tagtay dhakhtarkii baad hore weyday waxa laga yaabaa inaad tiraa inuu ila kulmaa baanu doonayay ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo mar rabo waqtigii waa gaadho waxa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo u dayday waxa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacayaanu meeshaba soo gaadhin waxa laga yaabaa xusnu dhanna hadaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso hadaad se mala xun markiiba siis qaadato warwar bay kugu reebaysaa ولذلك بقى إلهي وحي نجنا هي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وحينو باها النهي وكم إذا وحيابها نلش اللي قد ويه نبتو مركي دعضو صدى الله تصرفه وأنا أضو أرق مشكلات كوحوي أين أضو أرقته شلي بقى وحدين تلمامي أحد الصالحين ليدي نبى ليدوك وحنطي دبتنا سيدا عادي هيدو حيدنا العروضات دي قالوا لا أول وحمانا يغلط أشاكو ما يسوى وهذا لا يوحاسي كاشيك شيء ينو تي واحد الله هيدور وا لا يجتاج لا يعني من كاس دول كاس ودول لا يجتاج لا لكن waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu geeyay ninkii fadhiniya waxa la sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybisiisay deena hadiyada ma kuga abaal guday hadiyada tan qaadamu xanti wuxuu arkay inay tahay deenin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wuxuu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb kamid uu kugu daaqay intuu ku xamanayay way aakhira waxa la yidhi marka la soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa وحسنات كاغا dadka loo qaybinay hadii xasana laga waayana sayi'aadkood idan hadaad si fiican u fakarayso depression ku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxa kamid ah in leenay qofku inuu garto amal inna ma'al usri yusra nolosha inaad amal digin inaad garato dib kasto jirta in barito sayaj'al Allahu ba'da usrin yusra in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa waqtigoos ka kooban daraadeed qof kasta oo xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga waa dhakhaatiir wax daweeya idan waxaan idin kula talinayaa waxa weeyaan kow qofka mu'minka haddii mas'ailkan khaarijiga iyo iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakaraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakarto
waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaa baan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhahaa sonkorow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsigi wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan marka intaad xanuun nafsiyo fudud iska dawayn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mida waxaad u baahantihi haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydiiyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad khayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahay ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dhakhtar tagto idan ikhwatii fi lcaqiida ugu horrayn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga badiyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbigaa kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantahay isdaawee waa yar dhakhtarta